السلام عليكم أصحابتي وحرة سوري هذا إن شاء الله تعالى وجنال كسينو بشي قادم مركز إقلا سعوتا وحانا ليهي سور وهذا إن شاء الله تعالى ما أنتو حرب إنا كالو إن شاء الله تعالى إن شاء الله إيو مارتي دراد إيو arrin gabayar ku saabsaneed oo social media Soomaalida aad iyo aad isku dhexmarayeen cunugta yarta oo la yiri digsi ayaa lagu riday oo qol ayaa lagu xiray oo intaas oo laba bari ku dhawaad la raadinayay oo hooyadeed iyo aabaheed qaraabadeed dhan raadinayeen kadibna laga helay isla gurigooda dhexdiisa ayadoo gabadhii digsi inta lagu riday joodare dusha laga saaray oo gabadhiyo meyd ah marka waxaan leeyahay horta reerka Ilaahay samir iyo imaan ka siiyo arrintaasi waa arrin u baahan in baaritaan fiican lagu sameeyo qofkii ka dambeeyay inaan qaraabo ahaan iyo ilhaan iyo waxba loo qabanin oo qaraabo ahaan iyo ehel ahaan waxa way dadka Soomaalida waa wax bartaasna dhigay oo maxaa la yiraahdaa mar walba saan u lahayn waa tol iyo waa qaraabo ay dhulkana la jartay oo kii dambiilaha xataa saan isku lahayn isku qabiilatihiin yaa lacag laga dhiibay iyo maxaa la yiraahdaa odayaal iyo wax isdaba socday iyo wax adiga aan meel dheerna gaaraynin oo qofkiina xaqiisii aan si fiican looga qaadaynin qofkii dhibka geystana inta madaxa loo salaa horo oo u soco leeyahay marka waxaan rajeynaa insha Allah inaan macquul ahayn oo dadka sharciga la marsiiyo hadii lacala ay ku cadaato in iyagu dhibka geysteen hadii dad kale ay geysteen inaan laga harin ilmaha yararka gooni in loo ilaaliyo special gabdhaha markay yaryar yihiin waxaad moodaa in saaid loo ugaarsanayo Soomaaliya dhan marka hadii la fiiriyo mar walba waxaad maqlaysaa gabar ayaa saan la yeelay hadii iidi ay ahayd gabdho dhibaato loo geysto oo 5 gabdhood ku dhawaad oo ku jirto cunug yar oo 14 sano jirta marka waxaan dhihi lahaa hooyooyinka gabdhihiina bal insha Allah tacaala si gooni ish uga haay aabooyinka sidoo kale horta ilma dhowrto wixii Ilaahay ilaaliyo ayaa ilaalsan laakiin haddana waxaad moodaa gabdhaha in loo soo baxay oo in mar walba la maqlayo gabar ayaa saan la yeelay gabar ayaa inta waxaan ku dhaceen gabar ayaa saan noqotay marka waxaan leeyahay insha Allah tacaala ilmaha dhanba in si fiican oo guriga markii la wada joogo dadka dhan ilmaha inay kor ka wada ilaaliyaan oo ilmaha meesha marayaan la ogaado oo waxaan ku dhahay ilmaha aan la iska dhaafin oo la isdhihin ilmaha iska socda inaysan noqonin oo ilmaha si fiican loo ilaaliyo insha Allah tacaala taxadarka macnaha in la badiyo waxaan dhihi lahaa maxaa la yiraahdaa aabaha iyo hooyada mar walba waxa mas'uuliyad ka saaran tahay ilmahooda intii ilma yihiin oo aqligooda oo sabuuxin ama ay maxaa la dhahay said ku yaryar yihiin waxa loo baahan yahay inay taxadar dheeraada muujiyaan asxaabta iraalnooda marka insha Allah tacaala waxa waaye inay taxadar dheeraada muujiyaan asxaabay video oo meesha noo saaran video hore aan isu geliyay waaye insha Allah dhan waara asaga maanta kaba aan hadlayno waxaa rabay ina baraajinta ilmaha yararka aan kor u qaadno qof walba inuu ilmaha si gooni ah in isha loogu hayo ilmaha inaan la iska dayicin ilmaha inaan dhibaato waaweyn loo geysanin maxaa la yiraahdaa qofkii dhibaateyn ilmaha inaan balcafin asaga wax walba oo diintu ay farayso oo dadka islaamka ah in la marsiiyo qofkaasiti marka maxaa la yiraahdaa ilmaha inaad Soomaaliya arba aqaalo way oo mar walba oo ilmaha yarka loo dhahaya cunug asagoo meedal helo isagoo saanaha la yeelay isagoo haddana qofkii wax sameeyay badanaa lama soo taaga meelaha waxaan rabnaa in aragno in qof cunug yar dhibaateeyay oo ama naftiisa dhaafiyay ama maxaa la yiraahdaa adigu si uun dhibaato u geystay in isagoo meel taagan la arko isagoo la soo looga xaqiisa looga qaadayo isagoo in la arko in aanu cafinin ehelnimo iyo maxaa la yiraahdaa qaraabo ahaan marka insha Allah tacaala waxaan idin leeyahay walaalayaal Ilaahay khayrkaana waafajiyo insha Allah tacaala ilmahana aan ka taxadarno hooyooyin hadaan ahaan waxaa u baahanahay in fiiro gaar aan u yeelno ciyaalkeena insha Allah tacaala waxaan leeyahay video inta kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh